الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، جمعه هوري أو أها جمعه كواد رمضان كدنبي وحين كسو هذلني موضوعي أها قل آمنت بالله ثم استقم. إلهي بان رميي ده deedna ku toosnow. waxaynu ku soo faahfaahinay cibaadadii iyo khayrkii aynu la soo qabsanay bishii Ramadaan in aynu joogtayno oo aynu xidhiidhino oo aynaan kala goynin oo uuna ku dhicin badhgo. haddii aynu la hadalnay walaalayaal toddobaadkii hore dadka aynu uga cabsanaynay gaabiska ilaahay subxaanahu wa tacaala inagama yeele ee loo yaqaano ramadaaniyiinta, jimcahan oo ah jimcihii labaad ee ka dambeeya Ramadaan waxaynu la hadlaynaa fi'a kale ama koox kale oo dadka ka mid ah. waa dadka dadaalka badan ee xamaasadda iyo xiisaha u qaba in ay ilaahay caabudaan subxaanahu wa tacaala. ayaynu leenahay hadar jiidhina, xadhkaha goosanina, ha xadgudbina oo nafta ha daalinina. إلهي سبحانه وتعالى دالماي توازنك ولا ليال وصرت عظمة كون كان يقرح ديسة ونسمة من سماته. إلهي وحليه سبحانه وتعالى الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. إلهي سبحانه وتعالى شيء والبميزان أيودي. وحاول الله سبحانه وتعالى آياتك لكليها إلى الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. قرح ذا يضيح إسجار مايان هبينك يومالنتنا كالهرمر مايان متكستبوح كالصعداء ميزانك إلهي سبحانه وتعالى أدقى يوك الصعداء. توازنك ولا ليال وحوء إلى ليا إنسان كفضاء شيسا وحونا أغا حفظيا in ay isku gedido oo ay isku bedesho radaa'il iyo waxyaabo liita. dhexdhexaadsiga loo baahan yahay walaalayaal waa in uu noqdo ruuxu kariim karaman laa yasilu ilaa xaddi tabdiir, deeqsinimo aan daadaadsi lahayn. waa in uu shujaac noqdo shajaacatan laa tasilu ilaa xaddi tahawur, geesinimo aan qar iska tuur lahayn. dhexdhexaadsiga loo baahan yahay waa ruuxu inuu digtoonaado laakinahu حذر لا يصل إلى الخور والخوف، وفوجكنان أنفلين ملهين. متوكل على الله إنه نقضى أيالو بهنيه ولا ليال، لكن لا يصل إلى حد الإهمال. ودائم أتوكل لكن ضيع لآنوي نفتي سئلو بمايو أهل كيسنا ضيع مايو. وحن تصالو سوقادنا ولا ليال لحد نمضى يتوازن كقيمه qisadii saddexdii asxaabi ee mashhuurka ahayd. saddexdii nin ee saddexda shay ka soomay. midkood wuxuu ka soomay hurda ayuu ka soomay, seexan maayo ayuu yidhi. midna wuxuu ka soomay inuu wax cuno oo soon ayaan xidhiidhinayaa ayuu yidhi. midka saddexaadna wuxuu ka soomay inuu guursado. nebigu salawaatullaahi wasalaamuhu calayh isagoo la hadlaya saddexdaa waxa uu yidhi: أنتم الذين قلتم كذا وكذا مياته رجي لصدا إيو صدا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. إلهي بان كدارتي وحان أهي روحا إذن كعب سبضا إلهي سبحانه وتعالى دنكي، لكني أصوم وانصوم يا وانا أفريا، وأصلي وأرقد وأن تكانيا وانا صيحانيا، وأتزوج النساء هوين كان وانقور سنة يا أيها صلوات الله وسلامه عليه. فمن رغب عن سنتي روح السنة إذا أعنتمي ويده إديده إراعي وايا فليس مني ومضى إذا كم بدماء يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه. وحاك لولاي حبيب كان صلى الله عليه وسلم قبت أعماش انت أد أودان فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا. إلهي دالي مايو إلا أداشان. عائشة وحي ليدهي رضي الله عنها
nabiga sallallahu alayhi wasallam agtiisa acmaasha loogu jeclaa ee ugu qiimaha badan lihi waxay ahaayeen kuwooga la daa'imo haba yaraadaane sidaas darteed walaalayaal waxaynu u baahannahay acmaasha inta aynu awoodayno inaynu ugu dadaalno in aynu xidhiidhinno in aynu joogtayno in aynaan kala goynin waxaa kaloon u baahannahay walaalayaal in aynaan nafteenna u xambaarinin oo aynaan ku kalifin waxayna awoodin si aynan nafteennu u nicin ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa